magaalada Laascaanood ee gobolka Sool dagaal qaraar ayaa iminka ka socda waxaana u dhaxeeya ciidamada militariga Soomaaliland iyo maleeshiyad hubeysan oo u dagaalamaya midnimada Soomaaliya iyo inay ka go'aan maamulka Soomaaliland haddaba dagaalka aad ayuu u qaraar yahay waxaana halkaas ku sugan wariye Cabdiwahaab Aadan oo kamid ah suxufiyiinta Soomaaliyeed iminka si toos ah ayuu qadka telefoonka Laascaanood ugu jira Cabdiwahaab wararkii ugu dambeeyay inoo sheeg حسين هذا يضم سنتهاي أدي أن قبل الله وسيد ما أنت أي حالة اللاسعانود وحوي حسين سيد دتكو ويا قنانكو يطبنكي يشمي كنتم دقيقة مركي صلاة الصبح لقى بعد كذب أيام مملكة الصومالي لأن عيد النذور وحاي ويرقص وقاعدين تنع بريء مجالة اللي يراد اللاسعانود markii hore waxa ay heleen ciidamo ilaalo ka ahaa marka fanaanka magaalada inta wixii ka dambeeyay waxa bilowday rasaas xoog leh waxaana markii dambe dhacay labada dhinac ay gurmad xoog leh dalbadan oo isfarasaaray ilaa ay xaqada aan kula hadlayna waxaan filayaa sababta idriyanka rasaas aad maqli kartid marka sida ayay wax u jiraan ugu horeyn salaan subaxdii hore ilaa 12 ilaa hal saac waxa jirtay qiimo xoog leh oo ay ciidamada maamulka Soomaaliland magaalada la dhacayeen laakiin hoose oo aan helay sheegay in ugu yaraan afar baabuur oo gaadiidka dagaalka ah oo ku isaaka magaalada duqeynay ahaa in ciidamada deegaanku ay gubeen marka xaaladda aad ay u qaraar tahay dhimashii oo dhaawac ayaa jira hadiyo jeeraalana waxa la arkay ambulance ee socota magaaladuna waxay ku jirtaa marxalad dagaal oo aad u qaraar inkastoo uu Xuseenow dagaalku ka soconayo dhinaca bari xoogiisa laakiin tusaale ahaan dhinaca waqooyiga iyo waqooyi bari iyo tusaale galbeed oo kaleeto daftarkeedu dhifeesiyo xoog la ayaa looga jiraa waana la dareensanaa in maalmihii lasoo dhaafay magaaladu ay dagaal wajahayso marka la fiiriyo xaaladaha iyo siyaasadaha isdiidan ka jira magaalada Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool marka ilaa iyo hadda rasaastu toos ay u socotaa laakiin ciidamada maamulka Soomaaliland weli waxay joogaan goobaha saaka la isku farasaaray oo waxa la ii sheegay isku dayo badan oo ay markaas sameeyeen oo ahayd magaalada ay gudaha u galaan ayaana isu tagelin oo ciidamada deegaanku ay jilbaa waaseen marka magaalada dadka degan Xuseenow marka aad aragtid dareenkood حتى مرة قار تمر كي بسوا بعيو عيد ماذا دتك ديجان كان لتشوفه هذا وقت كان كرتا دت ديجان كي بالجنام دجال يو عيد ما ملتري هو دحين مرة جوج ما أنت كي مجال اللاسعانات وارون في متجد ويهرب راسه أنا بعيو حسين وما سنت عبدوهاب وحد شكتي إن مجال الحالة ده آد إمك أوقع سنت هاي وحد يجي ورا تادت كي ديجان كدجرا حالة ده إمك واسدة حسين هذا ما تنتهي هذا دتك الديجان كي مجال دجن تجاشن هذه كرا بقول كي بوا لقى قحي مجال أو ولا دريم يجي وحاسوس أو لما موقف أو أدو كلاتك دتك الديجان كهلي أنا ودت سوماليا ديان ما سومالي لان كميت مني على كابلوجا أي السنة يعني مجال اللاسعانات بنتي سنة تومن سنة كده هيدا مع المقهر أنت كعضون كدعين قفك لو أركو فرنسي بلوجا رنتي عذاب أذك أيوم متيسنة هذا المجال هذا أصلا وح كبابنا يعني في سوماليات marka waa dad marka aad wareysato ku dhahay anagu deegaankeena ayaa joogna ilaahay baa Soomaaliya naga dhigay midnimo Soomaaliyeed baan u taaganahay maamulkana mar rabno marka waa dad qadiid noocaasi ah ku dagaalamaya Soomaaliland waxay leedahay iyaduna bataata banaga dhagamatiin waxa si mid marka waxaan marka qadiida la eegay dadka magaalada waa ka qaxeen intooda badan waa ka qaxeen laakiin magaalada sida ay tahay dad baa jooga si gaar ah marka aad u fiirsato waxa soconayna waa una xaaladii dagaal iyo waxyaabihii la filayay Xuseen قصارها كورن عبدوهاب إلا إمك أنت أدركتي أمام قشي. حسين ده هو واحد عايد مرافع يجوب علوف أي ضعية مركب بنان كنا أنا ضد هذا وهؤلاء أبد لكن وحلاقي شيء يا إن بابورتي ساكن الدقين يسين الجودي كل خسارة مشي يداو عليه تبغى وجرا فصالة بس كديجان وحلاقي شيء ويران شن إلى اللح إن داو وجرا الله إلى يسدح دمشق أنا أي جرتوسين وإيش تلاقي mid kamid ah mas'uuliyiinta ciidanka deegaanka oo aan hadda diyaar u ahayn inaan magaciisa shaaciyo sabab aan la ii ogoleen awgeed xusino marka qaar runtii waxaad moodaysaa xabaduhu in ay dhinaca iyo magaalada banaankeeda usii fogaanayaan laakiin haddana waa marka qaar aad bay usoo magaranaysa kulaanaysaa halay sheegaya ciidamada maamulka Soomaaliland in gurmad soo gaaray laba mar ah laakiin dadka deegaanka iyagu sidoo kale waxay ka soo gudbinayaan xitaa dhammaan deegaanada ku hareeraysan magaalada Laascaanood marka waxa la dagaalamayaa waxa weeye Xuseenow waa dadkii deegaanka oo dhan ma aha ciidan gaar ah ma aha beer gaar ah marka
waad garan kartaa markii dadkii dad deegaan gobol dhan degan macal rag iyo dumar ay hubkii qaataan oo ay dhiibiyaan oo ay kacaan hadda waad garan kartaa marka afartii jaha ayaa xitaa ciidamada Somaliland laga jiraa marka maanta uu dagaalka qarxay sababta ugu weyn ee Somaliland dagaalka soo qaadeen waxa la warinayaa daraasad qaar ay sheegeen inay tahay Hussein in ma garanaysaa ay tahay in maadaama heshiiska qodobo kamid ah warbaahinta si hordhac ay u heshay inaan taakay heshiiskaas magaalada Laascaanood aan looga dhawaaqin marka sida ay sheegayaan dadka aan wareystay marka isku soo wada duub xaaladda ay ka jirta maanta magaalada Laascaanood Hussein runtii waa mid aad u culus inkastoo magaalada oo dhan hadda rasaastu ay u xoogan ay dhinaca bariga ilaa iyo waqooyi bari dhinaca ay ka soconayso markasta loo fiiriyo oo magaalada galbeedkeeda ay yara degantaa rasaska dhacayna laakiin dhinaca ay haddana xoog ugu socotaa marka saacad walba waxaa la falin karaa xitaa dhinaca kale in ay ka bilaabato waxaa kaloo xuseen waxaa jirta dad dhalinyaro ciidamada maamulka Somaliland ka tirsanaa oo u dhashay dadka deegaanka iyaguna markii rasaastu ay bilaabatay qaar baa waxaa dhinaca ciidamada deegaanka soo maray waayo waxaa la leynaya ama la dagaalamaya waa dadkoodii marka xitaa waxaa la sheegaya mid kamid ah saraakiisha ciidanka maamulka Somaliland runtii in uu magaaladu yiri arrinta ciidamada maamulka Somaliland uu ka diiday inuu dagaalamo sarkaalada muhiim u ahaa marka aad baad u mahadsantahay waxaa kaloo la sheegay Xuseen mid kamid ah dadka deegaanka in gurigii uu hoobiyo ugu dhacay oo isagu iyo wiil u dhalay dhinteen waa mahadsanta aad iyo aad u mahadsan tahay wuxuu ahaa Cabdiwahaab Aadan oo ah suxufi ku sugan magaalada Laascaanood sidoo sheegayna odayaashii dhaqanka waa ay soo gabagabeeyeen kulamadii bariyahan buu socday war murtiyad ay soo saareen waxa ay ku cadeeyeen in ay guud ahaan ka madax banaan yihiin maamulka Somaliland oo gobolka Sool iyo Sanaagba ay muddo sanado ah hoostagi jireen waxaana kol hore ay isku dayeen inay sameystaan maamul u gaar ah oo qaatuma aha laakiin way u suurtagali weysay daawadayaal wararkii ku soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan dagaalka ka socda magaalada Laascaanood waad ku mahadsantihiin share garay muuqaalkan laag inoo saara aad ayaad ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalka